ciidamada xaquudirirka deegaanka oo ay kaabayaan ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ayaa maanta si rasmi ah loo wareegay degmada Xarar Dheere ee koonfurta gobolka Mudug kadib howlgal socday 48 saacadood oo ciidamadu ay ku baadigoobayeen haraadiga kooxda maleeshiyada al-shabaab ee ku dhuumaalaysanayay degmada Xarar Dheere iyo deegaanada hoos yimaada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug gudoomiyaha guddiga difaaca iyo dib u xoreynta gobolka Mudug iyo odayaal ka tirsan dhaqanka gobolka Mudug oo galabtay warbaahinta kula hadlay furimaha hore ee degmada Bacadweyne ayaa bogaadiyay howlgalka ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanka oo garab ka helaya kuwa daraawiishta galmudug ay maanta kula wareegeen degmada Xarar Dheere ee koonfurta gobolka Mudug ciidamada qalabka sida xooga dalka Soomaaliyeed ciidamada daraawiishta galmudug ciidamada deegaanka dhammaan huwanta iskaashan oo maantay reer galmudug iyo islaamka dhanba u soo jiiday sharaf aan la koobi karin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan ayana waxa leenahay ciidanka aad iyo aad ba ugu mahadsantihiin dhammaan waxaan rabaa maantay degmadii qadiimiga ahayd Xarar Dheere iyo degmada kale qalcad ee maanta labadaba gacanta dawladda iyo gacanta ciidamada soo galay ilaahay waa ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala halkan waxaan rabnaa inaan hambaliyo uga diro ciidamada qalabka sida nooc ay yihiin inaan hambaliyo insha Allah ta'ala waxaan ilaahay ka rajaynayaa inta hartana qatimadeeda in la gaari doono waxaan rabaa reer galmudug dawlad iyo gudaha inta jirta waxaan rabaa in la walaal maantay naf iyo maalba ciidamada la garab istaago hal soo caawiyo waxa dareemaysan meesha ay joogaan iyo waqtiga naftoodii iyo dhiigooda noo hureen anagana waxaan rabnaa haddaan guda jirno haddaan daba jirno inaan iskaashano oo maanta inta hartay cadow laga xoreeyo sidii walaalaha Hirshabeelle kala ay yeeleen isu kala harin reer galmudug waxaan ugu baaqay in loo kala harin farxad bay galabta noo tahay aan la koobi karin ilaahay waa ku mahadsan ciidamada waa ku mahadsan yihiin reer galmudug dhammaan waxaan ugu baaqayaa arintaas in la iska kaashado maqaamkan waxa u taaganahay inaanu ka hambalyeeyno hawlgalka lagu xoreeyay degmada Xarar Dheere iyo deegaanada hoos yimaada iyo deegaanka Galcad waxaan rabaa marka koobaad inaan si guud ugu mahad celiyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan militariga iyo maaragtay gorgor iyo danam sidoo kale ciidamada daraawiishta iyo ciidamada deegaanka ee dib u xoreynta oo maanta ka wada qayb qaatay xaqiijinta laba degmo oo muhiim ah Soomaaliya muhiim ku ah hambaliyaan leeyahay marka labaad waxaan si gaar ah ugu hambaliyeenayaa ciidankii buqcadan ka tagay oo daraawiishta iyo kuwa deegaanka oo muddo 2 maalmood ka hor halkan ka dhaqaaqay maalintii saddexaadna Xarar Dheere ku xaqiijiyay hambaliyo guul weyn baa gaarteen waad xoreyseen sidoo kale waxaan rabaa halkan waxaan ballan ku kala qaadanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo noogu yimid isla markaasna naga codsaday degmada Xarar Dheere in la xoreeyo ballanqaadna ku sameeyay mudane madaxweyne maantay Xarar Dheere waa xor waa ka soo baxnay dhinaceeni kaalintaadina iyo garab istaagaaga qaybtii ugu horeysay waa aragnay oo ciidankii xoogga iyo ciriyo dhulba wana kala howlgalay ballanqaadyadii ciidamadana insha Allah ta'ala markay saldhigato oo cadawga laga saaro Soomaaliya ayaa insha Allah ta'ala la fulin doona barbarkay ka baxdaa waa bikayla galeen dhinaceena insha Allah ta'ala way ka taagan tahay waxaan u mahad celinayaa ciidanka kale oo deegaankan oo ayaguna u ruqaansan doona insha Allah ta'ala qaybta ka hartay deegaanada naga horeeya oo caad iyo shabeelow ciidanka xooga dalka iyo ciidanka daraawiishta galmudug iyo ciidanka deegaanka oo maantay si buuxda gacanta ugu dhigay degmada Xarar Dheere oo in badan ummadda Soomaaliyeed iyo reer galmudug ay ku taamahayeen gacan ku dhigideeda marka ciidankaas aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waa ugu hambalyeeynaa degmadaas qadiimiga ah oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen oo maamulayeen khawaarijta al-shabaab in maanta ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanteeda soo galiyay oo ka xoreeyay mujrimiintii khawaarijta ahayd waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'aala maalmaha soo xiga degmooyin badan iyo meelo badan magaalooyin badan oo isxiixiga in ummadda Soomaaliyeed ay maqli doonto oo laga xoreeyay khawaarijta hadii ilaahay yiraahdo dhammaan waxaan ugu baaqaynaa reer galmudug
in loo dhaqaaqo khawaarijta iska xoreyntooda ciidankana la garab istaago mar labaad waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida iyo dhammaan shacbiga oo aan u kala harin inay khawaarijta dalka ka xoreeyaan marka aad iyo aad u mahadsan yihiin ciidanka meesha ka howlgalay iyo dhammaan ciidamada kale ee mujaahidiinta ee meelaha kale ee furimaha joogo ay dhowdahay mar dhow inay dhaqaaqaan ina cadeyna waxaan taaganahay meeshii madaxweynaha Soomaaliya uu kaga dhawaaqay in ciidankan ay xoreeyaan Haradheere marka waxaan rabnaa inaan xaqiijino oo cadeyno in ciidankii meeshan joogay madaxweynuhu ugu yimid degmada Wasiil iyo meelaha kale oo maantay ay Haradheere gacanta ku dhigeen anaga balantii Maxamed ciidanku way ka soo baxeen inta dhimanna maalmaha soo socday insha Allah taala ay furi doontaa xagga madaxweynaha balanqaadkiisa ah in ciidanka dalacsiiyo ayaa dhiman insha Allah taala haddaan iskale maanta waa guuleysanay waxaan ku guuleysanay ilaahay bariyihiisii iyo dulqaadkii meeshaan aan waqtiga badan aan qaadanay annagoo ah haddii alla ku ran yahay haddii alla ku ran deegaanka galmudug haddana mudug haddana Wasiil ah waxaan u mahad celinayaa ciidanka daraawiishta halkan ka geedi galay oo maanta haddii alla ku ran la faylay dawladda federaalka oo Generaal Biixi uu hogaaminayo oo haddii alla ku ran deegaanka waa u mahad celinayaa ilaahay waa mahad iska leh Allah ina guuliyaan leh warbixin uga sii deynaya dawladda Soomaaliya federaalka madaxweynaha Xasan Sheekh oo noogu yimid bagcadan Wasiileed oo haddii alla ku ran yahay aan ballanay ballanteennuna ahayd markaad Haradheere tagtaan ciidankeena daraawiishta iyo beeshiinaan reer Wasiileed halkaas baan ku wada hadli doonaa darajada aad leedihiin iyo mudnaanta aad leedihiin iyo geesinimada aad leedihiin iyo taariikhda aad leedihiin halkaas ku kala qaadanaynaa madaxweyne soo dhawow maanta ciidankii daraawiishta oo haddii alla ku ran beesha mudug oo haddana Wasiil waxay taagan yahay Haradheere ayagoo iyo kuwii galmudugba iyo kuwii ayagoo la faylamaya ciidanka federaalka madaxda dhamaan u tahay ballantii waa ka soo baxnay haddana haddii ilaahay qawaariista waxaan u taaganahay inaan la dirirno Soomaaliya oo dhan aan ka wada xoreyno deegaamada galmudug ay ku jiraan inaan ka xoreyno intaasna waad kugu daraynaa midii horena waa ku guuleysan halka taa markaan uga tago Soomaalidu waxa la yiri dhurwaada waxa la wuxuu cunay rati waa ku jiraday markaas hor maxaa kugu dhacay way sarsar baan ka maro ratigu sidaas u rumayna sadmiyaan ka cuno waxay sababay saarnayde nimankan qawaariista ayagoo Soomaali haysta baa Ilaahay oo sadana haysta baa Ilaahay Wasiil u soo diray Wasiil bay yimaadeen ameen madow ay soo galeen balaaya ka raacday balaayadii mahadeedii maanta hayaan waa sarsar baan ka maro ratigu sidaas u rumayna sadmiyaan ka cuno waxay sababay saarnayde maanta Soomaali waa fahamtay annaga fahansiinay in la dili karo Soomaali waa fahamtay annaga fahansiinay reer Wasiileed iyo reer Kalqayood iyo reer Mudug ah taasuna waa mahad gooniya taariikh waxay u noqonaysaa qoonkii dambo shaatiga soo bedesho yiraahda haddii alla ku aan hoola mudug awalna taariikh badan oo la soo maray oo lagu halaagsaday baa jiray maalinkan lahaa jannadu shabeelle way taalaaban u warramay waxaan war ka bax wixii hore ka toobad keena Soomaalina ka dhamaada maanta aad kugu damaysa markaad maagteen nimanka la yiraahdo sax dadku way saaxiib garanaya taniya haabiil haddana laba wadanka uga baxaan leeyahay geedka soo ku jirtaan saqiiradeedii baa ku xiran oo geelayagii baad ku qalateen oo hadduu inii daaqahaya dakanaduna dadka samramanihin annagu howlgalka dhana kooxda maleeshiyada al-shabaab oo iska kaashanayaan ciidamada dawladda federaalka ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa 13 bishan ka bilowday deegaanada koofureed ee gobolka mudug kuwaas oo la doonayo in lagu xareeyo deegaanada ay kooxda maleeshiyada al-shabaab ka maamusho koonfurta gobolka mudug saadaq siciid nuur raadiyaha iyo telefishinka galmudug degmada Wasiil